Ya bize insansız hava aracı vermiyorlar. dhanka samaynta difaaca nama aysan siinayn diyaaradaha droniska markaan weydiino goormeedna siinaysaan waxayna leeyihiin koongareesku idinma ogolaan xilligan wiil reer Trabzon ah miyuusan samaynin diyaarad aan duuliye lahayn haa wuu sameeyey dronis hubaysan miyuusan samaynin haa wuu sameeyey haddana mid ka weyn ayay samaynayaan hadda waxaan maraynaa marxalad aan dhoofi karno halkeen se joognaa maanta ma fahanteen way samaynayaan shacabkan way samaynayaan Bu millet yapar ya. hadalka madaxweyne Erdogan waxa uu imaanayaa xilli uu Turkiga horumar weyn ka gaaray sameynta iyo waliba ku dagaalanka diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaan droniska xilli ay khubarada arrimaha difaaca qeexeen in droniska Turkiga ay bedeleen wajiga dagaalada bariga dhexe kadib dagaalo dhowr ah oo ay qayb weyn ku lahayd droniska Turkiga gaar ahaan dalalka Syria, Liibiya iyo Azerbaijan haddaba sidee ayay ku bilaabatay sameynta droniska Turkiga oo lagu sifeeyo dabka duula ee wacdaraha ka dhigay goobaha dagaalka sanado badan Turkiga waxa uu baahi xoogan u qabay diyaaradaha waxbasaasa waxna duqeeya ee droniska oo dunida ku cusbaa xilliga si uu ugu baacsado kooxda Turkiga uu u yaqaano argagixisada ee PKK oo u dagaalama in ay dalka Turkiga ka gooyaan qaybo kamid ah oo ay degaan qowmiyadda Kurdida horaantii dawladda Turkiga waxaa diyaaradaha ku taageeri jiray dalku sheegga Israa'iil oo Ankara u kala dhaxeeya heshiis iskaashi oo dhinacyo badan leh xilligan ay aad isugu dhawaayeen inkasta oo haatan ay wax badan iska bedeleen xiriirka labada dhinac oo iminka ku soo ururay xiriir dhaqaale iyo mid diblomaasiyadeed sida uu madaxweyne Erdogan sheegay marar badanna uu ku celceliyay waxa ay ka codsadeen dalka Mareykanka diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee uu sameeyo Mareykanka kuwaas oo in badan ka tayo badnaa kuwa Israa'iil kana awood badnaa dhan kasta laakiin madaxweynayaashii kala duwanaa ee isaga dambeeyay aqalka cad ayaa ka biyadiiday arrintaasi isla xilliyada waxaa barashada cilmiga tiknoolajiyada droniska ku mashquulsanaa wiil dhalinyaro ah oo u dhashay dalka Turkiga oo lagu magacaabo Selçuk kaasi oo cilmiga engineeringa ka qalin jabiyay jaamacadda Istanbul Technical University ee dalka Turkiga kadibna darajada labaad ee jaamacadda waxa uu ugu aanbabaxay dalka Mareykanka halka oo uu kala soo noqday laba shahaado oo waxbarashada sare ah oo uu ka soo kala qaatay jaamacadaha University of Pennsylvania iyo Massachusetts Institute of Technology oo kamid ah jaamacadaha ugu magac dheer ee dalka Mareykanka Selçuk waxa uu soo ragashay sanadkii 2005 in uu ku qanciyo mas'uuliyiinta dalka Turkiga inay goobjoog ka noqdaan mashruuciisii ugu horeeyay ee kicinta drone aad u yar oo uu sameeyay tijaabadaas oo noqotay mid guuleysatay sanadkii 2007 Selçuk waxa uu ku soo noqday dalkiisa Turkiga waxaana uu maamulo ka noqday qaybta tiknoolajiyada shirkadda aabihi ee Baykar shirkadaas oo ku takhasustay farsamada qalabka tiknoolajiyada iyo dronka yaryar durba waxa uu Selçuk bilaabay in uu hormariyo shirkadii aabihi uuna ka dhigo shirkad qayb muhiim ah ka qaadata kobaca tiknoolajiyada ee dalka Turkiga sanadkii 2014 injineer Selçuk waxa uu daaha ka rogay mashruuca droniska Bayraktar TB2 oo dhammaystiran waxaana la tijaabiyay mar kale bishii Abriil ee isla sanadka June 2016 ciidamada qaranka Turkiga si rasmi ah waxa ay bilaabeen adeegsiga diyaaradaha droniska ee Bayraktar TB2 sida aan ka soo xiganayno mareegta rasmiga ah ee shirkadda Bayrak nidaamka diyaaradda aan duuliyaha lahayn ee Bayraktar TB2 waxa uu ka kooban yahay 3 qodob oo kala ah qaybta koobaad waa qaybta dhulka ee diyaaradda aan duuliyaha lahayn laga hago waxaana haga diyaaradan 3 qof oo u carbisan aqoonta hagida droniska qaybta labaad waa xarunta hawlgallada halkaas oo ay ku rakiban yihiin shaashado waaweyn lagana amro hagayaasha droniska iyo waliba ciidanka dhulka jooga ee diyaaraddu ay dul hayhaabayso si ay iskula jaan qaadaan qaybaha kala duwan ee hawlgallada dronka ay fulinayso qaybta saddexaad waa diyaaradda dronka hubaysan ee wax gumaada taas oo leh awoodda in ay hawada ku jiri karto muddo 24 saac ilaa iyo 27 saac mararka qaar
dhanka jooga Bayraktar TB2 waa 2.2 mitir waxa ayna dhulka ka sare mari kartaa 18,000 ilaa iyo 27,000 oo feet. sidoo kale Bayraktar TB2 waxay qaadi kartaa culaab dhan 150 kilogram waxaana ku rakiban gantaalo smart ama caqli badan oo ah kuwa lagu hago laysarka. waxa ayna diyaaradan qaadaa 300 litir oo baasiin ah. dhanka dhirirkana waa 6.5 mitir halka garbaheeduna ay dhirir ahaan dhan yihiin 12 mitir. haddii diyaaradan la miisaamana waxay dhan tahay 650 kilogram. May 2016 Seljuk Bayraktar waxa uu guursaday inanta yar ee uu dhalay madaxweyne Erdogan ee lagu magacaabo Sumaya Erdogan waxaana arooskooda oo si heer sare ah loo soo agaasimay uu ka dhacay magaalada Istanbul waxaana ka soo qayb galay mas'uuliyiinta ugu sareysay xilligaas dalka Turkiga. gunaanadkii xafladda arooska waxa uu kula dardaarmay madaxweyne Erdogan inantiisa dardaarankii uu Nabi Muhammad nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee uu siiyay inantiisa Faaduma markii uu u guuriyay ina adeerkii Sayyidina Ali bin Abi Talib dhammaantood Allah ka raali noqdee. 28 February 2020 waxay ahayd maalin murugo badan kuna reebtay shacabka iyo dawladda Turkiga kadib markii ciidamada Turkiga ee baraha control ku lahaa waqooyiga dalka Suuriya ay kala kulmeen weeraro gaadma ah dhanka ciidamada Bashar al-Assad iyo maleeshiyaadka Shiicada ah ee ka barbar dagaalanta. waxaana weerarkaas ku nafwaayay 34 askari oo ka tirsanaa ciidamada Turkiga. arrintaas oo caraf fara badan ka dhalisay gudaha dalka Turkiga waxaana la arkayay sawirada shacbiga Turkiga oo aad u ilmeynaya oo huwan calanka cas ee qaranka Turkiga kuwaas oo ku baxay dhismayaasha diblomaasiyadeed ee Ruushka uu ku leeyahay dalka Turkiga kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in Ruushka uu ku dhiirigeliyay rejiimka tabarta daran ee al-Assad weeraradii lagu beegsaday ciidanka Turkiga. janaaso qaran oo loo sameeyay ciidankii Turkiga iyo asma muusan kadib waxa uu ku dhawaaqay madaxweyne Erdogan howlgal uu ugu yeeray gaashaanka go'aab. howlgalkaas oo loogu argudayay 34 askari ee laga dilay Turkiga. saacado kooban kadib waxaa si isdaba joog ah u soo baxayay weeraro dhanka cirka ah oo wasaaradda difaaca Turkiga ay qaybisay muuqaaladooda waxaana laga dheehan karay muuqaaladaas droniska Bayraktar TB2 oo si ba'an u gumaadaysa ciidamada Bashar al-Assad iyo maleeshiyada Shiicada dalka Lubnaan ee Hezbollah oo askar iyo saraakiil fara badan looga laayay duqeymahaasi. dhamaadkii howlgalka wasaaradda difaaca Turkiga ayaa shaacisay inay ku dishay duqeymahaas in ka badan 3,000 oo ka tirsan ciidanka al-Assad iyo xulufadiisa iyo gaadiid dagaal iyo kuwa gaashaaman oo fara badan. arrinta xiisaha leh waxay ahayd markii uu ka soo muuqday Seljuk Bayraktar mid ka mid ah muuqaaladii ay baahisay wasaaradda difaaca Turkiga isagoo ku jira qolka laga hago droniska kana qayb qaadanaya howlgalkii lagu arguday askartii Turkiga kaga shahiiday. muuqaalkaas oo si weyn ugu faafay baraha bulshada gaar ahaan barta Twitterka waxa aad u soo dhaweeyay shacabka Turkiga waxayna ku tilmaameen Seljuk Bayraktar inuu yahay haliyey qaran waxaana uu magaciisa ka soo muuqday trendka mareegta Twitterka ee dalka Turkiga. sidoo kale Bayraktar TB2 waxa ay qayb lixaad ka qaadatay dagaaladii dalka Liibiya iyaga oo u diiday hogaamiyaha fallaagada ku ah xukuumadda wadaagta dalka Liibiya Khalifa Haftar in uu qabsado caasimada dalka Liibiya xilli ay ciidankiisu ka dhex dagaalamayeen xaafado ka mid ah koonfurta caasimada Tripoli. kadib duqaymo isdaba joog ahaa oo droniska Bayraktar looga fuliyay waxa ay markaas ku qasbanaadeen Khalifa Haftar iyo ciidamadiisa sida gaarka u tababaran ee ka socday dalka Ruushka ee shirkadda Wagner in ay isaga ruqaansadaan galbeedka dalka Liibiya. muuqaaladii wacdaraha dhigay ee dalka Liibiya ka soo baxay waxay ahaayeen weeraradii ay Bayraktar TB2 ku qaaday gantaalada casriga ah ee lidka diyaaradaha ee loo yaqaano Pantsir kuwa oo ay warbaahinta Ruushka hore ugu tilmaamtay in wax dul mari kara aysan jirin. balse arrinta qubarada dhanka difaaca ka yaabisay waxay ahayd markii 6 ka mid ah gantaaladan ay beegsatay Bayraktar TB2 laguna baahiyay muuqaaladooda baraha bulshada iyagoo ololaya. si la mid ah dagaalka Liibiya waxaa laga war helay subaxnimadii 27 ee bishii September ee 2020 wasaaradda difaaca ee dalka Azerbaijan
oo baahinaysa muuqaalo ay duubtay Bayraktar TB2 oo beegsanaysa dhufaysyada ciidamada Armenia ay kaga sugnaayeen dhulka buuraleyda ah ee Karabakh oo Azerbaijan laga haystay muddo ka badan rubuc qarni. ugu dambeyn Azerbaijan waxa ay xal biday inay ku xoreysato dhulkii ka maqnaa diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Bayraktar TB2 kadib markii ay ka quusatay sida muuqata waan iyo xal nabadeed oo waara. gunaanadkii Engineer Saljuk waxa uu si marxaba leh u soo dhaweeyay hindisihii aadka u yaraa ee Guuleed Cabdi oo magaalada Buuhoodle ku sameeyay diyaarado yaryar oo macmal ah kaas oo loo qaaday markii dambe dalka Turkiga. Engineer Saljuk oo ka hadlayay Guuleed waxa uu yiri waxa uu yeelan doonaa mustaqbal wanaagsan. waxa aan Guuleed ka arkay yaraantaydii. ugu dambeyntii waxa isweydiin mudan qaranka Soomaaliyeed goorma ayuu heli doonaa geesi ugu adeega sida Engineer Saljuk. goormese ayaa la dardargelin doonaa dhalinta hal abuurka leh ee soo hana qaadaya mise waxaan sugi doonaa in dalal kale ay ka xeestaan hal abuurada Soomaaliyeed sida dhacda aalaaba.